howdka weyn ee ciidciidka maalin ka hor waxaa laga saaray kooxda qawaariijta ee al-shabaab kuwa oo ku dagaalamayay maalmihii la soo dhaafay balse ugu dambeyn militariga Soomaaliya iyo macwiisleyda ayaa ugu daatay godad waaweyn oo ay ka qoteen howdkaasi weyn. dowladda Hirshabeelle iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya waxa ay go'aan ku qaateen in howdkaasi weyn laga dhigo meel bannaan si mar kale aysan gabaad uga dhigan. waxaa la go'aansaday dadka deegaanka iyo dawladaba intaba go'aansadeen in la cadeeyo dhulka ay digi jireen oo juqda ay gabaad ka dhiganayeen in baldoosaro la keeno la cadeeyo iyo shaqaalaba intaba ayaa la isku waafaqay dawladda iyo dadka deegaankaba ayadoo dawladdu ay hormuud u tahay midda state-ka iyo midda dhaxawa intaba ay wataan hawshaas marka waxa meesha ku jiro baldoosaradii iyo ciidamadii intaba waa iskula jiraan. waxaan rajaynaynaa marka inaynu dib dambe aynu ugu soo laabanay dadka aynu ku waxyeeleen ayaan rajaynaynaa inaan laga baneeyo meel gabaad ay waayaan ayagu laftoodu annagana ka heerma doona insha Allah hadii la yiraahdo meel alla may galaan hadda gubiga ka gudbeen waa ka daba gudbayna ma kanayno anu ku laftayno waa ka daba soconaa ilaa laga cirib jaro malihiin annagu waa nimanka fogaadeen iska naqda waa daba soconaa insha Allah hadii la yiraahdo waana cirib tiraynaa. qawaariijtii halkan ku dagaalamaysay shalay waxaa lagu bixiyay baaruud maanta waxaa lagu banaynayaa halkan baalle birito waxaa lagu beeri doonaa beero sidaasi waxaa yiri xildhibaan Saadaq Mukhtaar Cabdulle oo ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle. shalay meesha halkan baaruud eeday maantana waa u jeedino baallo way shalay baaruud looga saaray maantana baalla la mariha meelihii ay sameeyeen si aysan ugu soo laabanay gabaad dambe aysan u naqanin birina waa beerasho oo waa tacbaysan oo iyadoo aan qarash uga bixin dadkaani dawladda damaana qaatay in geedahan meesha ay ka bixiso dadkuna si xur ah ayay u tacbo doonaan si xur ah ayaysan uga gora doonaan dawladda iyadoo lagu dhibaynin iyadoo sakawaad walaxay u baxshanay dhibaato aan lagu dirqiyaynin iyadoo aan lagu qashqashaadaynin iyadoo lagu ciqaabaynin ay beera doonaan dadku waxayna u gudbi doonaan nolol wanaagsan haduu Ilaahay yiraahdo. wasiirka maaliyadda Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa ugu dambeyn digniin u diray qaar ka mid ah dhalinyaro halkan u dhashay oo qawaariijta isla halkan ku soo hogaamiyay. waxaan rabaa inaan maanta halkan kala hadlo dhalinyaro deegaankan ka soo jeeda oo shabaabka ama khawaarijta ku soo hogaamisa deegaankoodii. waxaan rabaa hal kelimad inaan iraado hal baaqna aan u jeediyo ballanqaadna loo sameeyo. kelimadda aan rabaa inaan iraado waxa waa wiilashaas deegaanka soo jeeda ee deegaanka ay ku dhasheen oo ay ku koreen oo waalidkood degan yahay oo walaalahood degan yahay cadawga ku soo hogaamihayo waa taariikh xumo. maanta marka waxaan leenahay walaalayaalow inaad dadkiinni iyo deegaankiinni ku soo hogaamisiin cadow idinma qabato. waxaan idinkugu baaqaa ka soo taga ma rabno inay kanaaca idinku disho inay baahi idin disho inaad webiga ku dhibtootiin inaad beeraha dhibaato idinku gaarto ka soo taga nimankaas dib ugu soo laabta deegaankiinni iyo dadkiinni. dawladdan waxay idin ballan qaadaysaa qofkii sida ay madaxweynuhu federaalka u ballan qaaday qof kastoo shabaabka soo goosata oo ka soo tagta in la soo dhaweeyo oo la dhaqan celiyo oo markaas nolol loo abuuro. gudoomiyaasha deegaanadiinan ciidanka iyo ciidankiina ayaa mas'uuliyadda iska leh. militariga waa idin la joogiyaa waa idin caawin kariyaa laakiin waxaa la idinka rabaa insha Allah wixii dhiman oo dhameystir ah sida lagu ballaymayba nimanka inay soo qabatiin dhufiisidii waa la idinkaga saaray xoogga ciidanka militariga waa la idin siiyay dawladdu waa noo soo gurmatay wixii qabyatir ah iyo habjaqa soo qabashadiisa iyo nidaamintiisa idinka la idinka rabaa. dadka deegaanadani waxa ay doonayeen in howdkan oo ah howd dad gooniha ay leeyihiin in ay fashaan oo beera ay ku beertaan balse waa ay ka diideen waxaana ay sidoo kale halees ay ka dhigteen haddii aad goyso hal geed waxa aad dishay hal askari waxaana ay ka fikirayeen 15 sano ka hor in sidan oo kale ay ugu dhuuntaan.